laba qiso cajiib oo quraanka ku taala labaduba waa ina nuux iyo ina ibraahim qisadii nabi nuux inankiisa markii ummadiisa la halaagayay waa kii ilaahay ku lahaa doon samayso nuuxow adiga wixii ku raacana doontaa saar ehelkaagana doonta ugu yeer inay fuulaan waa kii nabi nuux inankiisa u yeeray ku yidhi qaala yaa bunaya irkab macna walaa takun maca alkaafiriin qaala yaa bunaya inankaygi yaraayow irkab macna nala soo fuul walaa takun maca alkaafiriin kaafiriinta macooga ha noqon buu ka yidhi qaala sa'aawi ilaa jabalin yacsimunii min almaa qaala sa'aawi xataa aabba ma odhan baa la yidhi ilmo aabbihii u yeedhay ilmo waalidkiisu u yeedhay oo markuu u yeedhay aabbo ama hooyo odhan waaya hada calaamatu shaqaawa bay culimmadu leeyihiin waa calaamatu shaqi waa caaq ilmahaasi sida u jawaabaa laga garanayaa ina nuux jawaabta uu bixiyey eeg ina ibraahimna jawaabta u bixiyey u fiirso ismaaciil wuxuu yidhi yaa abati ifcal maa tu'mar aabba amarka lagu amray buuxi buu ka yidhi laakiin nuux inankiisa wuxuu yidhi sa'aawi ilaa jabalin yacsimunii min almaa xataa aabba ma odhan baa la yidhi dhallinyaradaan sheegaya iyo ciddii waalidadoodu maanta ay nool yihiinow waalidkaagu markuu kuu yeedho hadday hooya ku yeedhana hooye macaanay dheh hee hooye macaanay hadduu aabbahaa kula hadlana hee aabba macaano dheh waa ilaa haddaad how tiraadid keliya how ba maxaa tidhi hada calaamatu caaqul waalidayn weeyaan nuux inankiisa badbaado ugu yeedhayaa inankiina badbaadadii u iska diido wuxuu yidhi buurtaasan biyaha ka fuulayaa faxaala baynahuma almawju fakaana min almughraqiin baa ilaahay yidhi iyakoo labadooda hadalka isweydaarsanayaan reerkii mawjadihii duufaanka ayaa dhex maray deedna inankiisi waxaa ilaahay ka yeela kuwii qarriqmay kuwii kana waxaa lagu yidhi inii araa fi lmanaami anii adbaxuka fandur maada tara waxaan ku manaamay anoo ku beraynaya sida neefka xoolaha loo bereeyo ee aabba maxay kula tahay buu ka yidhi qaala yaa abati ifcal maa tu'mar satajidunii in shaa allahu min alsaabiriin aabba amarka ilaahay buuxi oo yeel aniga hadday noqotona waxaad heli doontaa inaan ka mid ahay kuwa saabiriinta adkayste labada aabba maaha bay culimmadu leeyihiin maaha labada waalid labada aabba maahayna waa labada hooye ayaa kala duwan ina nuuxna waxaa soo tarbiyadaysay hooyo ilaahay cilaaqa aan la lahayn hooyo nebi nuux aanan rumaysnayn hooyo gaalnimadeeda qarsanaysay oo inankeyga ku lahayd odaygan qaylaya warkiisa ha maqline hora danahaaga qabso ismaaciilna waxaa soo tarbiyadaysay hooyo tidhi markii cillada lagaga dhaqaaqay tidhi ilaahayna dayici maayo ibraahim oo da iska soco laanna ilmaha baa la yidhi inta badan tarbiyadda hooyadaa saamaysa ee tarbiyadda aabbuhu ma saameeyo inta badan ilmuhu ma hooyuu la joogaa mise aabbo midkuu la joogaa hooyuu la joogaa hadday hooyadu hagaagsan tahayna ilmuhu way hagaagayaan hadday dumarku naga baanaadaanna ciyaalku way baanaanayaan waayo dugsiga ugu horeeye mujtamacu ka soo baxaa uu wax ka soo barta waa hooyada haddii dugsigaasi uu noo hagaago uu dugsi diin danaynaya u noqdona mujtamac diin danaynaya soo bixi doona hadday malcaamadahaas iyo dugsiga uu naga hallaabo uu naga xumaado ilaahay nagama xumeeye waa haweenkan u jeeday hadday haweenku naga xumaadaan waxaad ogaadaan jiilalka soo socdana way naga qalloocsamayna ogaada marka dumarkeenna xaasaskeenna gabdhaheenna hablaheenna inaan diinta ku tarbiyadaynaa waxay ka dhigan tahay mujtamaca soo socda hagaaggiisii baa ku xidhan gaaladuna laba qolay ku dadaalaan maanta laba qolo dumarka iyo ubadka labadaabay naga soo galaan odayaasha dan uma leh ragga dan uma leh gaaladu labaday ku dadaalayaan maanta waa labadaas waayo jiilkan maanta jooga waxay leeyihiin hayna dhaafaan laakiin jiilalka soo socdaan bedelaynaa bay gaaladu ka fikirayaan inay bedelaan lidaalika nebi nuux calayhi salaam islaamtiisu maadaamay gaaladahayd oo gaalnimada qarsanaysay tarbiyadda inankeyga iyadaa saamaysay ismaaciilna
aabihii kuma ag barbaarin hooyo ku ag barbaaray tarbiyadii hooyadii baa saamaysa hooyo caynkeeya hooyo ilaahay ku xidhan hooyo cidna markii lagaga dhaqaaqay tidhi ibraahiimo ma amar ilaahay ba haa ilaahay nima dayacayo socabay ku tidhi ilaahay waa ilaaliya ibraahim minankiisii ma gowricin ibn qayim aljawsi raximah llah wuxuu yidhi maqsuudku ma ahayn ilmaha gowrac maqsuudku wuxuu ahaa jacaylka alla mooyaane jacaylada kaloo dhan qalbigaaga ka sar